gobol kasta oo Soomaaliland maanta qaylo ayaa ka soo yeedhaysa madaxweyne maaha maanta oo kale maalmihii la isdifaaci jiray maanta oo kale maaha maalmihii la is adkeyn jiray maanta oo kale maaha maalmihii ku jiqsiida iyo dooda iyo maxaa khaladkayga loo sheegaya amaba loo arkaya maanta madaxweynaha waxa laga rabaa inuu talaabooyin waaweyn oo muuqdo oo dadka raali geliyo u qaado 3 bilood kadib waxaynu aragnaa gudidii inay tamar beeshay waxaynu aragnaa inaanay gudidii ay tahli weyday ilaa maanta inay cisbitaalladeenu wada helaan oxygenkii ay u baahnaayeen madaxweyne cisbitaalka Hargeysa wuxuu ku jiraa 200 talaabo waa waajib ku saaran waxa ay dadku sheegayaan maalin walba laga hadlayo inaad baadho oo dadkaadu soo bandhigta baadhistaasi waxa ka soo baxa maalin kasta waxaynu aragnaa bukaan socod ama qof xanuunsanaya oo cabanaya waxaynu aragnaa qofkiisii uu jeclaa dhintay oo cabanaya oo dayac ka cabanaya dunida kale marka qof dayac u dhinto cidda dayac sababtay talaaba laga qaadaa marka ugu yartahay xilkooda ku weyda dadka maxaynu ku nidhaahnaa dadka maxaad ugu jawaabaysaa dadka maxaad u sheegaysaa kumanaanka kun ee kale ee warwarka qaba ee maalin kasta hadlaaya madaxweyne maxaad iyagana ugu jawaabaysaa maanta waxaan soo jeedinaynaa arinta gudidaasi in dib loogu noqdo gudidaasi laba mushkiladood oo waaweyn baa haysta mushkilada koowaad gudidaasi ma laha xirfad caafimaad mushkilada labaad gudidaasi ma laha xirfadda waxa la yiraahdo crisis management amaba sida loo maamulo marka mushkilada waaweyn ay dhacaan in shararuun la isugu yimaado maaha oo shir jaraa'id la qabto waxaynu u baahanahay oo maanta dawladnimadeena dacfigeeda muujinaya burco in maanta 29 sanadood kadib ambulance loo dawaraayay 2 wiig ka hor waynu la wada soconay wixii ka dhacay baraha bulshada iyo sidii dadku ay uga hadlayeen ay uga falceliyeen ceeb bay nagu tahay in maanta cisbitaalladeena loo dawaro ambulance loo dawaro inagoo cashuurta bixina dawladeena sanad walba ay tiraahdo budgetkii dawladda kordhay xaguu budgetkaasi taga sidoo kale madaxweynaha waxa laga doonayaa intii hawshan ay socotay qasnada dawladda lacag baa laga saaray oo loo dhiibay gudida si ay u maamusho sidoo kale dad badan oo muxsiniin oo shacbigeena reer Soomaaliland iyo ganacsatada oo ay ugu horeeyaan Telesom iyo Dahabshiil iyo Wall Remit intubana lacag maxaan ku raahdaa taakulo weyn ayay ka geysteen arintan sidoo kale hay'adaha caalamiga ah iyaguna taakulo ka geystay madaxweynaha iyo gudidaba waxa laga doonayaa sababta ilaa haddana looga cabanayo wax la aqbali karo runtii maaha shacbiguna uu dhageysan karo oxygen la'aan in cid maanta u dhimato tiyo ay noognahay in waxa soo lacaga